السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سلامي دمان Soomaaliweyn sa wada dhantihiin. Waxaan u maleynayaa maanta inay tahay maalin Isniin ah 22-ka February. Teeda kale dhammaan Soomaaliweyn sa wada dhantihiin mar labaadan idin salaamay. Salaan kadib waxaan rabaa inaan idin kala hadlo topic yar oo aan saas u sii buurneyn. Marka ugu horeyso aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dowladda Soomaaliya hawsha ay ka qabatay wadanka 4 sano ay soo haysay. Waa markii ugu horeysay aan ugu hambaliyeynayo. Waa meeshii aan fadhiyey 4 sano ka hor maalintii la dooranayay aan codkeyga ku iri dowladda waxaan taageeri doonaa hadday 4 sano soo socoto ay sameyso wax la yiraahdo horumar ay wadanka ugu talaabsato. Markaas ayaan u noqonayaa nin taageero dowladda. Inta ka horeyso dowladna kama mid ihi mucaaradna kama mid ihi, labadaba waa u dhaxeeyaa saan hore idinku sheegay 4 sano ka hor. Laakiin maanta waxay iga tustay in aan taageero buuxda u muujiyay dowladda federaalka. Maxaa yeelay waxaan ogaaday 4 sano la soo dhaafay waxqabadka ay wadanka u sameysay. aad iyo aad ayaan u mahadcelinayaa. Tan xigta waxay tahay waxa wadanka 4 sano la soo dhaafay dib u dhigay waxa la yiraahdo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada oo kala duwan. Laakiin ugu dambeyntii hadda waxaa carqalad xoog la ku noqday 2 maamul goboleed Puntland, Jubbaland. Okay, maxaa la rabaa in loogu gudbo labadaas maamul goboleed? Waxaa la rabaa in loogu gudbo wax la yiraahdo nidaam cusub. Maxaa yeelay awoodda ay sheeganayaan waxaa siiyay dowladda federaalka siisay saan aaminsanahay. Maxaa yeelay dowladda federaalka waxay ka gaabisay inay wax ka qabato maamul goboleedyadan labada maamul goboleed. Aad iyo aad ayay ugu gaabisay iyadoo u aragtay inay yihiin dowlad kale oo madax banaan sida Imaaraadka kale ama Kenya kale ay u aragtay dowlad la mid ah. Ma aha dowladda federaalka waajib ayaa ka saaran gobol walba Soomaali ka mid ah inay u adeegsato awooddeeda. Awooddeeda kaliya lama rabo inay ku soo koobto gobolada jilcan sida maxaa la yiraahdaa maamul goboleedyada oo awoodda yar kaliya inay amar ay siiso kaliya looma baahna. Waxaa loo baahan yahay kuwa awoodda sheeganaya inay awood u adeegsato. Wayna u adeegsan kartaa waana ku mahadsantahay tan ay u adeegsatay sida Jubbaland oo kale. Awoodda ay u adeegsatay waa mid loo baahnaa oo waliba ay hore ugu gaabisay. Sida hadda gobolka Gedo waxay adeegsatay dowladda awooddeeda adeegsatay waa tan hadda gacanta dowladda ay ku jirto. Maxaa harsan? Waxaa harsan 2 gobol harsan Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. Maxaa Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ummadda ku nool kama mid ah miyaa maxaa la yiraahdaa Soomaali oo dowladda awooddeeda Gedo kaliya ay u dhigtay. Taas waa ku qaldan tahay. Dowladda waxaa la rabaa inay hore u sii socoto. Teeda kalena in aan micnaha waxaan hadda la qiimeynayo wax qiimo maba kala haba oo la yiraahdo madaxweyne waa governor waa wax madaxweyne la yiraahdo ma jiro. Madaxweyne wadanka waxaa ka ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ka ah. Hadduu dhacay iyo hadduu idin taagan yahay ba asaa madaxweyne ka ah xilligan. Ma hayn madaxweyne kale oo bedelay. Waxaa loo baahan yahay marka labadan qof oo isku haysta inay yihiin dowladii Imaaraadka oo kale oo ama Kenya ma aha dad Soomaali ah waaye wadanka Soomaaliya ka tirsan yihiin. Marka aniga ra'yi ahaan waxaan soo jeedin lahaa 3 gobol ama 4 gobol madaxweyne wax lagaaga dhigay governor. Taas waaba qaldan tahay. Waxaan joognaa United States. Every gobol walba wuxuu haystaa governor. Maxaa Ohio iyo Kentucky la sugu dari waay iyo Nashville maxaa la yiraahdaa Tennessee Ohio iyo Kentucky loo dhihi waayo macnaha hal governor ah xukumayo. No, waxaa loo baahan yahay gobol walba inuu xukumo hal governor. Jubbaland waxaa laga doonayaa in loo sameeyo 3 governor si gobol walba oo qof ugu taliyo. Gedo waxay taagan rabtaa calan sida maqlay. waa wax ay xaq u leeyihiin in Gedo calan laga taago oo governor loo sameeyo. Jubbada Dhexe in calan laga taago governor loo sameeyo.
jubbada hoose sidoo kale governor qaas ee loo sameeyay aabe marka awoodii uu sheeganayo Axmed Madoobe awood ma sheegan karo gobol walba waxaa haysta ama xukumanaya dadkii u dhashay oo ma ka soo jeedi marka waxaa waajib ah 18 gobol ee Soomaaliya inay helaan 18 governor inay helaan oo la yiraahdo wax madaxweyne meesha uu ka baxo aniga taasan aaminsanahay 18 gobol ee Soomaaliya ay ahaan jirtay inaa 18 governor loo sameeyo oo miiskaas ay soo fariistaan oo madaxweynahoodana ahaado Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaqiiqda waa sidaas waxa kale in indhaha la iska tirin haddii la rabo dowladnimo Soomaaliya oo socoto oo maanta oo awoodan oo qof walba iska sheeganayo uusan lahayn waa qalad Axmed Madoobe maxaa ka soo gaaraya gedo su'aal waa la isweydiiyay gobolkayga halayga baxo ma dhihi karo gobol uu leeyahay ma aha gobol uu hal qof asiga ka soo jeeda ama faraciisa ku nool yahay ma aha marka aqli xumada iyo dadka ma aqaan waxay cabeynaa ma fahmi la'ahay yani wax la cabay ma jira hadda oo yimid ma aqaan iimaan darida miya oo wax iimaan dar xataa waa ka weyntaa wax kala jira aan ogeynba ana hadaan fiiriyo maxaa la yiraahdaa adiga gobol aadan u dhalana waxaad soo taagan tahay gobolkan ciidanka laga bixiyay anaa xukuma hadda wax ku xukumi kartaa sidee maxaa tahay horta asaas mis weydiisay gobolka aad leedahay laga bixiyay ciidamada gobolkaada miya gobol aad ka soo jeed miya على الأقل حتى هذه أهان لهاد قبل أذيك الله هاي حتى إسكت قبل كي عيدم الله يستان عيدم الله سالك ساره وح معقول أيوة قبل كم مبو دلنا أذيك ينينك كيمد معلي هذا أنا أو قوة هوركياته إنه أسكت دويا بلاقيا قبل كاس ديجان أهم مركل يراد هوركياته وكأدوب إنه يراد قبل كأنا إسكاله رنت هذا الإسكو شيء رنت ديدنتين إذا كسومال وين waxaan u maleynaa runta maba isku sheegtiin ma fahamtay runta hal isku sheego Uhuru Kenyatta iyo Axmed Madoobe Uhuru Kenyatta gobolkan inuu yiraahdo gobolka anaaba iskala ku dhowba marka Uhuru Kenyatta waxa ka soo horeeyay ninaaba lehbe aniga iskala gobolkayga la iga baxo niyo waxa laga tuuray qar dheer laga tuuray oo fahmi la adaa inaa qar ka dhacsan tahay in kale isqaba gobolkaas gobol aad ka hadli kartid ma aha kuwa afadhisaab si gardaro ku fadhisaab xaq daro ku fadhisaa runta hadii lagu sheego wax runta ku sheega la adahay ninkan dani la yiraahdane ma aqaan ciidan la leeyahay ma jeerteen aan waxaan u maleyn jiray inay intaan dhaamaan laakiin waxaan ku ogaaday inay zero ay siyaasadda xageeda ay zero ka yihiin waay shakhsi kaligiis say u burburina macnaa nolosha iyo jiritaanka ummad dhan oo Soomaaliyeed ah uu leeyahay aniga sidaan hal ii sameeyo xaq maba u lihid ba asagana intaas gobol inuu haysto xaq maba u lahaba gobol walba family ka soo jeedo iska leh degan familkaas governor ha u noqdaano ha ka taliyaano waay sool sanaag iyo cayn wax walba cid walba iska sheeganayso maxaa ka gal ay sool iyo sanaag iyo cayn dhul baahanta ma tahay may waxa ina governor loogu dhigo nin dhul baahanta xaq u leh runta hadii la isku sheego marka runta la isku sheegay ma runta diidantiina Soomaali weyn iyo dadkan sheeganaya maxaa la yiraahdaane maamul goboleed madaxweyne ah waxa ka sii qaldanba dawladda ka qaldanba laftirkeeda iyada laftirkeeda waxa u baahan in isbitaal la geeyo dawladda laftirkeeda waay ninkan saddex gobol oo asay wakiil ugu noqonaa gobolkan dadkiis ma dhintay ayaa Axmed Madoobe wuxuu ku leeyahay gobolka Gedo liga baxo gobolka Gedo dad ma laha dadkii reer Gedo ma dhamaadeen adi markaa leedahay gobolkayga liga baxo qalad reerahana kala ku soo reer Puntland runta isku sheeg idinka runta ina isku sheegtiin waaba diidantiin jiritaanki iyo hor u socodkii Soomaali weyn ma waxa hor istaagay kaliya dani kaligiis ma idin wax hormudnay dad ma qabtiin qoom wax kale oo la hadli karo oo salaadiinta inta kale wax soo baratay hadduu awood idin sheeganayo dawladda federaalka oo imaada ninkan awooduna waa haystaa ku dhaha waa ninka xureyna Sheekh Shaakir waa laga xureeyay maanta maxaa la yiraahdaana cid walba cid kor dul saaran waa laga xureynaya qeyd runta isku imaada reer Puntland dawladda soo hoos fariista dhaha anaga ninkan xooguna waa haystaa ma sha Allah haram caada joogan oo lagu kala baxaa iyo gorgor ma la yiraahdaa ciidamada oo dawladda federaalka oo lagu kala baxay wax isaysanay ma laha laakiin idinka idinka helo wax la yiraahdo Soomaalinimo reer Puntland hadaa runta rabtiin Soomaalinimo idinka helo ama waa go'an iska dhaha reer
Somaliland oo kale war cada ka yaala anaga waa ka go'nay Soomaaliya ma rabno ay taagan yihiin laakiin ayaga oo leh waa go'nay Soomaalinimada idinkaga dhow adaan fiiriyaan because wax Soomaalinimo idinku jirto haddii Soomaalinimo idinku jirto Soomaaliyiin mar hore dhaqaaqi lahayd laakiin wax carqalad ku ah idinka waa reer Puntland runta daarabteen dani ayaa saan yiri dani ya shirki diiday maxaa reer Puntland oo dhan dani ma waxa maxaa la yiraahdaa waxa ka dhigateen maxaa la yiraahdaa ilaah ka dhigateen war ilaah ka baqa Soomaaliyiin dhinac ka soo raaca daarabteen in Soomaali ay socoto wadankan shakhsi walba oo la isdhihi karo waa hogaaminaya waa socodsiina asaa loo dhiibaaya macnaha risaalo ma ku soo degin adiga reer Puntland ina madaxweyne ka noqotay risaalo ma ku qorno adiga sheeganaya maxaa la yiraahdaa oo rabo ina magaca habii wax ku dudumisid ama aragti ina wax ku cuntid risaalo oo ku soo degtid ma jiro ina adiga la wadanka madaxweyne ka noqotid cid walba wadankaas oo la dhihi karo ninkaana samata bixin kara ilaa Mariixaan ha ahaado jeerteen ha ahaado qabiilada aad takoortiin ha ahaado cidii markaas la isdhihi karo wadankan waa samata bixinaysa madaxweyne ka noqonaya marka ina la rabaa ina isku qufishid maskaxdiin ina ka saartiin madaxweyne habiya noqonaya ra'iisul wasaare waxa noqonaya daarood ina maskaxdiin ay ka bixisiin oo Soomaalinimo isku shubtiina loo baahan yahay waa idin salaamay dhammaan saa wada dhantiin dawladda federaalkana oo hambalyeynaya dhammaantiin waa idin salaamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maalin walbana waa soconaya maxaa la yiraahdaa guwaabada maxaa yeelay aad iyo aad u jirantihiin cudurkan idin hay ilaa idinka bixiyo aad iyo aad xanuun xuna idin hay Soomaali weyn daatihiin xanuun xuna idin hay xanuunkaas ilaa idinka saar maxaa yeelay hadda alxamdulillah horta xoogaa waxaaba la helayba wax yar oo wax fahmo oo maanta og macnaha dhibaatada wadanka ka jirta oo ka dhiidhiya taasna ilaa ma hadiisa waa aad iyo aad ugu maad celinaa dhalinyarada cusub aan leeyahay qadiyaasha ilaahana dhaafi say u wada dhanyiin maxaa yeelay cudur xun oo xunahay cudurkaas waana soo bahdishtay ilaah nooma soo celiyo guul iyo gobonimaan leeyahay dhammaan Soomaali weyn